والله يقول بالله يقول الله يقول قرآن الله يقول لأن بارك أمانة الآن قال لمصلحة الوطن هي أمتي إن كنت سرقت عمدا كما ميكي قول هلالي قول هلالي قول هلالي قول هلالي الكاو كوديو كورهرو تشري قول هلالي قول هلالي قول هلالي قول هلالي كما كوما إكي وعي كنت تحضر مالو تلالي كبرتا كما كوما إكي وعي كنت تحضر مالو تلالي كبرتا كوتلالي mudane aadan cabdulle cismaan dacar wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey jamhuuriyadda soomaaliya markay xornimada qaadatay sannadkii 1960kii aadan cabdulle cismaan wuxuu ku dhashay tuulada jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan sannadku markuu ahaa 1908 mudane aadan cabdulle cismaan allah u naxariistee wuxuu ahaa madi oo carruur kale lama aysan dhalanin aabbihiina wuxuu ka tirsanaa daraawiishtii sayid maxamed cabdulle xasan ilaa sannadkii 1920kii inuu ku dhashay maxaan ku iraahdaa maartay magaalo yar oo u dhow maartay maxaan ku iraahdaa maartay jawiil la yiraahdo oo u dhow beledweyne u dhow inuu ku dhashay aabiisi hooyis inay kala tageen asigoo yar kadibna maartay ay u soo guureen baydhabo aabihiisa macalinka noqday uu baydhabo maartay xogo uu joogay kadibna uu shaqo bilaabay oo ciidankii Talyaaniga xer ay leeyihiin oo ku yaali bay iyo maxaan ku yiraahdaa meesha leeyahay shabeellaha hoos inuu shaqo ka bilaabay marka odaga aabihii wuxuu ahaa wuxuu ka qayb galay dagaaladii sayid maxamed cabdulle xasan daraawiishti awowha wuxuu aaday dagaalkii ka socday waqooyi دراويشتها 1912 13 15 عمل بو حق آذيها سو درويشها وحونا صون نغضي مركي سيد كالجبيه odaga madi buu ahaa aabihii keligii buu dhalay hooyadii iyo odaga awowgay waxay isfureenba odaga markuu dhashayba islaantii buu furay kadibna wax badan ma uu nooleenba ayeeyday waxaan u malaynayaa isagoo 3 sano 2 sano jiray inay dhimatay isaga xasuustiisii wuxuu yiraahdaa ilaa aan ka soo gaaray 6 sano waxaan ku soo baraarugay ayeeyday وأنا الأيدي اللي جوه هاي أبيه دشة. مدن آدن عبد الله عثمان وحول على سيدات عرورة أوكل عليه ويل يلا بقبض وحين النقدين دقاتير إنجنيرو يدق عليه هنو تاسو كدلتي إنه أبوه تكون جري إني برتان وحدلك يدتك واحتريا وكغيب قادنا يلسمها الدلك عردنك وحانا هذا نول تضبع عرورة سكمدة يوحى أي سيد علين. أبيه الصومالي مركل ليه ومدحوينه وهريه qoyskiisu sidoo ahaa baa la oranaya
waxaa la odhanayaa qoyskaas 8 caruura waxaan u malaynayaa ilaa iyo 5 inay ka soo jeedaan bahda caafimaadka oo dhakhaatiir iyo maaragtay inay yihiin inta kalena injineer iyo inay abqaad injineer marka waxaa tusaale ah guriga wax walba yaaleen oo maabuurtu yaaleen wax walba yaaleen caruurtaasu halkaasi ka lugeyn jireen mudane aadan cabdulle cismaan wuxuu ahaa nin dadaal badan oo aad u jeclaa waxbarashada iyo inuu noloshiisa maareeyo wuxuuna wax ku bartay magaalada muqdisho isagoo bartay kalkaaliyanimada caafimaadka maamulka iyo dowlad wanaagga odaga baydhabo ka bilaabay inuu markaa isagoo 12 jir 12 sano jiro inuu keligiis isdabiro odaga wuxuu ahaa nin aanan helin nasiib oo aabba iyo hooyo korsada ma uusan helin odaga aabihiis wax ma haysan marka odaga asagaa shaqaysan jiray talyaaniga iskari maroodi buu ahaa mudane aadan cabdulle cismaan madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya wuxuu sanadkii 1929 shaqo ka helay maamulkii Talyaaniga oo muddo badan uu u shaqeynayay sanadkii 1944 ayuu magaalada Muqdisho u yimid si uu ugu biiro xisbigii gobonnimadoonka ee SYL wuxuuna noqday lambarka 30aad ee xisbigaasi waxaana isku mar la diiwaan geliyay isaga iyo Allah u naxariistay marxuum Cabdullaahi Ciise Maxamuud oo ahaa lambarka 29aad ee ka horreeyay mudane aadan cabdulle cismaan aadan cabdulle cismaan wuxuu ahaa reer beledweyne ku sugnaa beledweyne ku shaqaynaya oo ku noolaa laakiin marmar wuxuu safar ku imaan jiray xamar safaradiisa mid ka mid ah uu yimi wuxuu la kulmay dhalinyaradii markaasi aasaastay ama asaaskeeda waday ee SYL dhalinyaradii dhageystay afkaartooda uu la dhacay asagoo waxba markaa u sheegay wuu baxay beledweyne ku noqday saaxiibadiisu kulmiyey oo reer beledweyne la ahaa oo Sheekh Cali Jumcaale dad badan waaweyn ay ka mid yihiin ayagiibuu u sheegay wuxuu dhalinyaro noocaas ahaa xamar waxay ku aasaastay Somali Youth Club oo afkaartooda sida ay tahay inaan ku biiraan rabaa oo la dhacay afkaartooda afkaar Soomaaliyeed fiican inaan ku biiraan rabaa wuxuu weydiiyay ma igula biiraysaan igu raacsantiin ma raacaysaan ma ku darsanaa horta xisbiga saasuu ku soo galay saaxiibadiisana wuu soo waday wuu keenay marka leegada saasay ku galeen waxaan qoray anugu yacni beledweyne inaan qortaan uga soo tegey oo xamar ka qorto cabdullaahi ciise asaguna yiri ii soo qor marka awalan leegadii waxaan ahaan uu nambarkii cabdullaahi baan ka dhigay nambarkii 29aad ka horreysay intii qoratay anigu nambarkii 30aad baan noqday taariikh nololeedka Allah u naxariistee madaxweynihii hore aadan cabdulle cismaan aadan cadde waxaan ka xasuusan karaa waxa aan inta badan gurigan ku soo koray inta badan looga sheekaysan jiray gurigan ku soo koray wuxuu ahaa guri ay isugu yimaadaan dadkii horseedkii leegada SYL maxaa yeelay aabbahay Allah u naxariistee wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii halganka soo gashay oo la dagaalami jirtay gumaysiga Talyaaniga isaga iyo 11 uu ku jiro yaa waxaa lagu soo eedeeyay inay qalaaso iyo banaanbaxyo ka soo horjeeda lid ku ah mustacmarka gumaysiga Talyaaniga waxaa lagu xukumay 30 sano lagu xukumay markii ay dhameysteen 8 sano iyo 9 sano in ku dhawaada 1961 Julaayo yaa la soo daayay kulli wax alla wixii u xirnaa SYL-ka marka waxyaabihii ka hadli jireen waxaa ka mid ahaa wixii la soo maray halgankii la soo maray waxay ka hadli jireen sidii loola dagaalamay Talyaaniga taariikho iyaga u dhaxeeyay dadkii halgamayaasha ahaa oo markaas sheekeysanayo reflection sameynayo soo xasuusanayo wixii dhacay halgankii la soo maray intii dhimatay intii loo xiray intii dhaqaale ku bixisay waxaas oo idil marka waxyaabaha dhageyga ku soo dhici jiray waxa ka mid ahaa markay ka hadlayaan aadan cabdulle cismaan oo markaas madaxweyne ahaa inuu ku sifoobay ama uu ku adkaa mabaadiida ama afkaartii SYL oo ahaa midnimada Soomaaliya in la adkeeyo wadaniyadda la xoojiyo sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed inaysan gorgortan aysan galaynin qabyaaladda
in laga fogaado ay tahay wax xun oo runtii dadka ummadda kala qaybinaysa ayna ahayd waxa mustacmarka uu isticmaalo si ummadda uu u qaybiyo oo u xukumo. anigu waxaan ku soo barbaaray markaa Soomaalidu ay raadinaysa inay xorriyad hesho inay shacaarka leegada ay ahayd in wax la barto rag iyo dumarba wiilal iyo gabdho waxaan sidaa ugu horeeyay gabdhihii ugu horeeyay ayaan ka mid ahaa iskool gala. sanadkii 1951 wuxuu mudane aadan cadde noqday gudoomiyihii gobolka Mudug iyo wakiilkii xisbiga SYL ee gobolkaasi. 1953 ayuu mudane aadan cadde u soo wareegay magaalada Muqdisho. sanad kadib sanadkii 1954 wuxuu noqday ku-xigeenkii golaha la tashiga ama Consiglio Territoriale oo uu Talyaanigu sameeyay markii dalka dib ugu soo noqday. sanadku markuu ahaa 1959 ayaa loo doortay inuu noqdo mudane aadan cadde gudoomiyihii ugu horeeyay ee baarlamaankii dowladdii daakhiliga ahayd iyadoo uu xilkaasi hayay ilaa 1 July sanadkii 1960. From 54 ilaa 60 rool wuxuu ciyaaray weyn oo ahayd maxaa la yiraahdaa in Talyaanigii lala heshiiyo in Talyaanigii la ogolaysiiyo inay election local galaan inay galaan election maxaa la yiraahdaa in 56 election siyaasadeed la galaa oo SYL ay adkaato oo xukuumaddii iyada u soo wareegtay in lagu dhaqmo siyaasad qabiileed ma aha Soomaali ay ahayd waxa programkeedu uu ahaa haddana programkaas waxaa hortaagnaa dhaqankii iyo culturekii Soomaalida oo qabiilku uu yahay maxaa la yiraahdaa base-ka noloshooda kolka wuxuu isku waday wuxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ninkii Soomaalida isku hayay doorashadii ka dhacday koonfurta 1959 waxay ahayn 83% SYL baa qaadatay shakhsiyaad baa independent isu taagay oo doortay codbanaanka iyadoo SYL 83 leedahay buu qolo 5 lahayd vice presidentkii ka qaatay ayuu ku sameeyay jiray vice presidentnadii buu ku daray Cabdulqaadir Soobo waxa weey aadan Abdulla Sheekh ka mid ahaa odayaashii SYL xorriyadda dalka oo halgamayay ka mid ahaa muddo dheer uu ka mid ahaa daaqilka marka la qaatanay wuxuu ahaa ninkii loo doortay gudoomiyihii baarlamaankii daaqilka. SYL oo u taagnayd in Soomaaliya la isku raadiyo lagana fogaado qabyaaladda dadkana wax la baro waxay muddo yar gudahood ku guuleysatay qalbiyada dadka Soomaaliyeed. sanadkii 1948 ayaa waxaa xaaladda koonfurta Soomaaliya ka wada hadlay 4 dowladood oo ku guuleystay dagaalkii labaad ee dunida kuwaasi oo kala ahaa Mareykanka, Midowgii Soviyeeti, Ingiriiska iyo Faransiiska waxaana la go'aamiyay in muddo 10 sano ah amaan ahaan loogu dhiibo koonfurta Soomaaliya dalka Talyaaniga. arrinkaasina waxaa ka gilgishay ururkii SYL iyo taageerayaashiisa waxaana dhacay dibadbaxyo iyo kacdoonno dadweyne. mudane aadan cabdulle cismaan waxa uu ka mid ahaa horseedkii leegada ee diyaariyey in qaab xisbi siyaasadeed sharciyeysan Talyaaniga xukunka ay kala wareegaan. ma wadaweyrigan markuu inagu gaanshay amlaydiyo bilaawa markaanuu dakala boodnay ayaantii hanoolaatadii kulub ku argoostay nin ilaahay caasiyey ragii gawrac ku idleeyey qalbaabada kuwii ugu galay daallinka eryaayey ayuu tay markuu yidhi raggii ka ismici waayey afka labadii yeedhyadii markuu awlaxyada muujay maarxamine nimankii ka taray bodobkii asayle awlaaddii u cunayu dhimay aramideedii arbayaal dagaalku arrinsaday looma unsado meeshay abbaaraan li'id ciilla ku abaadiye sidaa dhisad qaareed kufriga laga unungooyey waagaa ilmada daadatiyo oohintii qubatay mid kala
kaatar xumay jacayla soo hara talyaani waa soo noqonaya way ka xanaaqeen waa talyaanigii oo la bixiyey ingiriisaa joogay talyaaniga la soo siiyey mandate asagaa imaanaya soo noqonaya markii laagadii way kacday dadkii badnaada oo soomaalida oo taageeray waa kacday kongareesay qabteen israa'iilka kongare waa 1940 isaga weli intuusan imaanin waaye talyaaniga aan soo noqonin oo ka aaminsan afis la ansixiyey yani United Nations waxay ansixisay in marta hay'ad yiraahdo afis oo talyaaniga dowladda madax loo wakiishay inay marata Soomaaliya 10 sano dowladnimo iyo horumar isku filaashay ay gaarsiiso buuqa ka kacay kongareeskii waxa ay yiraahdeen dadkii waxay bilaabeen waa dagaalamaynaa waa dhimanaynaa wasaanaan yeelaynaa ilaa aakhiri oo kulli dagaal ku saabsan kongareeskaas maalinta la fadhiyey Aadan Cabdulle hortiisa 60 qof baa hadashay 60 qof oo kongarees komitada central iyo askunta iyo dadka isku jira asaga ugu dambeeyay oo hadalka qaatay wuxuu weydiiyey su'aal يعني waa dagaalamaynaa kulligood waa dhimanaynaa waa fiican tahay okay laakiin hal su'aal khafiif ah ayuu weydiiyey wuxuu yidhi maxaan maal u haynaa maxaan hub u haynaa oo aan kula dagaalanaa dagaalkaas haddaan galna muku guuleysanayna su'aal macquul u keenay markii dambe ay isku noqdeen arrintii meesha markii lagu soo celiyey dowladdan oo European oo markaas xooggaada leh saad ula dagaalanto waxaad u baahan tahay hub yani hanti iyo hub oo meesha wuxuu u fasiray imaatag had ay imanayaan in aysan ahayn talyaani soo noqonaya ay tahay wakaalada United Nations ah ay tahay oo 10 sano muddo la siiyey 10kaas sano micnaheedu lagu sheegay in ay tahay in dadka Soomaaliyeed kartidooda iyo awoodooda iyo awoodaha gobonnimada sida loo isticmaalayo loo adeegsanayo ama arrimahooda ay u maamulan karaan lagu gaarsinayo nin Australia ambassador ka ah baa la keenay oo lagu yaqaanay Furfurano Ancelotti la oran jiray ninkii markuu yimi markaa waxa la shaqay cid majority-ga dadka Soomaalida haysata oo durba 3 sano yani dariiq qalad la maray taliyaan wana badan waa dalalka iyaga Faransiisku protocolka qarbiga ku adag ayay ahaayeen markaas waxa la shaqay cidii haysata aqlibiyada Soomaalida waa su'aalkii ka soo dhacay markaa waxa president ahaa Xaaji Maxamed Xuseen la oran jiray xamari ahaa laakiin tacliin buu doontay xusbiga fasax buu ka qaato Masar buu tacliin u doontay aadan cadda markaa si haya ahaa ku xigay baa golay dhexe gudoomiye u ah marka ninkii markuu yimi aadan caddu ka soo kordhacay wuxuu yiri saasaan u shaqeynaa aan wada shaqeyno aadan caddu golay dhexe u shiiriyay wuxuu yiri saasay talyaaniga inoo soo sheegeen hadaan la shaqeyno wixii halka dheer loo soo maray si ay xaqiiqooba 26 Juun 1960 waxaa calankii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed oo xor ah laga taagay beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa 5 maalmood kadib oo ku beegnayd 1 Juulaayna waxaa xoroobay koonfurtii Soomaaliya sidaasna waxaa ku midoobay labadii gobol ee waaweynaa ee ka midka ahaa 5tii qaybood ee imperialistuhu uu u qaybiyay ummadda Soomaaliyeed 1 Juulaay oo ay israaceen waqooyi iyo koonfur waxay ahayd bilowgii guusha iyo rajada shacbiga Soomaaliyeed mudane aadan cabdulle cismaan wuxuu nasiib u yeeshay inuu noqdo madaxweynihii koowaad ee jamhuuriyadda xorta ah ee Soomaaliya زرعيو كدوكيه زود قلتنا وانغايو سومالو قلنتا اكتا ساكينوغو رئيسو انسي ليلتين ايو ان قلانا ساقينين زدح ويقيو مهرمو هدن زرغوني وانغايو زبر الله كما يغابو زري ميزا نفضيدو زاحركي قلقوري زرعيو منسقامو انسي دو جنهي ايقو كان زيب كان زار horta marka hore inaynu dib u noqonnaa muhiim aho dalka uu hogaamiye ka noqday ee uu madaxweynihii koowaad ka noqday xaaladiisu sidee wuxuu ahaa dal qaybsan gumaystayaal kala duwan kala haystaan dadku kala system duwan yihiin dadku aanay isbaranin oo qofka Muqdisho jooga iyo qofka Kismaayo jooga iyo qofka Hargeysa jooga aanay isdhexgelin ayuu madaxweyne ka noqday oo looga tagay wuxuu ka tagay dalan dhaqaale lahayn ayuu madaxweyne ka noqday dalan system dejisan dalan dastuur lahayn wuxuu horta halku ka bilaabay baba ahayd waxaan afka qalaad ugu from scratch halka ugu hooseysa waxa kale oo cajiib ah dadku inay ogeeyeen Soomaalidu inay bariga aad u yaray
madaxweyne aadan cabdulle intii uu hayay madaxtinimada dalka waxa uu dhisay ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada cirka badda asluubta iyo sirdoonka sidoo kale wuxuu dib u tayeeyay ciidamadii hore ee booliska iyo xoogga dalka waxaanu ka tegay 67 dal dastuur leh ciidan leh police leh calan leh dadkiisu midaysan yahay isbartay institutionskii iyo hay-adihii dowliga ah oo dhan dhisan yihiin Somali Armed Force uu kobcay oo dagaal ku guuleystay oo 64 oo dalka la qabsan lahaa oo ka guuleystay horta dalka uu madaxweynaha aadan ka noqday waa dalka taariikhda uu ka tagayna waa Afrika u tahay inaga oo kaliya maaha Afrika u tahay taariikhda haba waxaan xasuustaa waqtigaas inaan dadku wax qabyaalada iyo wax kala sooca ayna jirin magaalo walbaba cidda ku nool inay magaaladaas ku magacownay magaalo la kala leeyahayna ma jirin waxaan ugu wacanaa xukunka markaas jiray Soomaalideenni hadday sinaatay isu samafalkeeduna waa daniyooseedo isu samafalkeeduna waa daniyooseedo nin lagu sexdo seexan cilibaad sidaaca seexan nin lagu sexdo seexan haseexan haseexan dastuurkii sanadkii 1961 sharciga ugu sarreeya ee dowladdu ku shaqayso waa dastuur u taagan heshiis bulsho iyo in la isku raaco qaabka ay noqonayso dowladda dalkaasi yeelanayo haddaba sanad kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliya noqday mudane aadan cabdulle cismaan aadan cadde wuxuu muddo yar gudaheed ku diyaariyay dastuurkii koowaad ee Soomaaliya ay yeelato dastuurkaasi waxaa 1961 loo qaaday laguna ansixiyay afti dadweyne 60kii markii la gaarayna oo labada gobol ay midoobeenna madaxweynihii ku meel gaarka ahaa baa loo doortay ilaa 61kii baa dastuurka la ansixiyey markii dastuurka la ansixiyayna doorashu galay isaga shaqal jimcaana tartamay asaga ku guuleysay doorashada ilaa 67 madaxweynihii qaranka ah xilligaasi uu mudane aadan cabdulle cismaan ahaa madaxweynaha Soomaaliya waxay martigelisay qaxooti badan oo siyaasadeed oo ka soo kala haajiray dalalka Kenya iyo Itoobiya 1963 markii Kenya ay xornimada ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska madaxweyne aadan cabdulle waxa uu siiyay ikhtiyaar kukuuyadii ka tirsaneed dhaqdhaqaaqii maamulka ee ku noolay Soomaaliya mar haddii dalkooda uu xoroobay inay kala doortaan in haddii ay rabaan ay dalkooda ku laaban karaan iyo in ay Soomaaliya ku noolaadaan iyagoo haysta deganaansho rasmi ah. All Kenyans living in the Somali Republic, whether united for Mau Mau activities or not, will be given full protection. In fact, their existing status will not be changed unless they choose to do so. dagaalkii 1964 intii uu xukunka hayay madaxweyne aadan cabdulle cismaan waxaa dalka la soo gudboonaaday marxalado aad u adag oo caqabad ku noqday hanaqaadkii jamhuuriyaddii curdunka ee Soomaaliya tusaale ahaan sanadkii 64 waxaa dalka soo weeraray guutooyin iyo gaasas ka tirsan ciidamadii xabashida oo ka amar qaadanayay boqor Hayle Salaase dowladnimada Soomaaliya oo xilligaas cusbeed iyo dalka oo ku jiray waqti doorasho ayaa dad badan geliyay warwar iyo dareen laakiin hogaamintii wacnayd ee mudane aadan cabdulle cismaan waxa ay keentay in Soomaalidu gacanna ay ku codeeyaan gacanta kalena ay dalkooda ku difaacdaan dagaalkii 64kii Soomaalidu si geesinimo leh ayay dalkooda u difaacdeen guushiina ay u hantiyeen Gaga
madaxweyne la jecel yahay oo dadku iskugu mid yahay oo taariikh ku leh dalka ayuu ahaa aadan cabdulle cismaan sanadkii 1960kii markii Soomaaliya xornimada qaadatay isla markaana ay israaceen gobolladii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya ayna dhalatay jamhuuriyaddii koowaad ee Soomaaliya mudane aadan cabdulle cismaan waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya xilligan dunida waxaa ka socday dagaalkii qaboobaa the Cold War wadamo badan oo Afrikaan ah oo xornimada qaatay xilligaasi waxaa gacan saar la yeesheen dalkii midowga Sofiyeeti iyo wadamadii shuuciga ahaa mudane aadan cadde waxa uu muujiyey bisayl siyaasadeed waxa uuna soo dhaweystay wadamadii dimuqraadiga ahaa dhanka kale safarkii uu madaxweyne aadan cadde ku tegay dalka Jarmalka galbeed waxa uu booqday argada ugu caansan dalka Jarmalka ee loo yaqaano Brandenburg Gate oo ahayd argada kala qaybisa dalalkii Jarmalka galbeed oo xilligaasi ahaa dimuqraadi iyo Jarmalkii bari oo shuuci ahaa xilliyadan mudane aadan cadde booqanaya Bonn iyo Berlin argada Brandenburg waxay astaan u ahayd xorriyadda iyo dimuqraadiyadda dunida waa maalmihii uu John F Kennedy madaxweynihii hore Mareykanka isaguna uu booqday arkadan uu ka jeediyey khudbadiisii caanka noqotay ay ahayd Ich bin ein Berliner waxaan ahay reer Berlin aadan cadde wuxuu sidoo kale booqday xilligaasi darbigii kala qaybinaya Berlin oo ahaa darbiga kala qaybiya cadaaladda iyo cadaalad darrada xorriyadda iyo xorriyad darrada maamul wanaagga iyo musuqmaasuqa madaxweyne aadan cadde markii horeba wuxuu ahaa damal harweyn wuxuuna ku sii qancay quruxda iyo qaayaha dimuqraadiyadda oo uu indhihiisa ku soo arkay wadamadii qaatay iyo horumarka ay ku tallaabsadeen madaxweyne aadan cabdulle cismaan allah u naxariistee waxa uu dalka Jarmalka la soo saxiixday heshiisyo waaweyn sida dhismaha booliska Soomaaliyeed waxbarashada iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha mudane aadan cabdulle cismaan wuxuu si nabad ah u wareejiyey xilkii madaxweynenimo wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay Afrikaan ah ee doorasho ku yimaada xukunka doorashana uga dega markii laga helay tartanka waana sababta aan ciwaanka filimkeenna documentary-ga ah uu magac darnay aabbaha dimuqraadiyadda Afrika the father of African democracy arrintan ayaa caddaynaysa oo tusaale fiican u noqotay in dowlad curdin ah ay ku tallaabsato waddada dimuqraadiyadda taasoo dadka Soomaaliyeed ay aad ugu riyaaqeen hannaanka wacan ee dowladnimo ee ka hergelay geygeena Soomaaliyeed taasoo carruur iyo cirooloba ku abuurtay inay kalgacayl ay u qaadaan
madaxweyne allah u naxariiste aadan cabdulle cismaan aadan cadde. waxaanu marmar imaan jirnay meesha hadda madaxtooyada ah. waxaan xusuustay inuu iga qabto oo aad u jeclaa in wax la barto oo nooga qasbay. dabeecadihiisa intaan ka arkay waxa weeye ma lahayn anigu cumar aadan aan isku kalaas ahayn. cumar aadan oo sidii wiil madaxweyne u dhalay keligii ama walaalihii baabuur lagu keeno oo macnaa baabuurra u wata. aadan cabdulle cismaan allah u naxariisto waxaan xasuusanayaa annagoo yaryar oo magaalada allay baday la yidhaha magaaladaydii aanu ka nahay grade 1 allay baday baan joognaa. wuxuunan maqalay madaxweynihii soomaaliya ayaa gebile imanaya. eegada gebiley annagu inay naga fogtahay intii noo jirta ma garanayno. caruur yaryar baan nahay waddadu ma qabsanay gebile halkee la maraa halkaa wanaga jagacnidhi annagoo wada kabaloo yaryar waa soconay dhexda markaa joogno ayaa waa la yar kale waaweyn yahay kuwa yaga yaryara waa kici kari weyne. markaa nin odayoo cagaf wati oo meel gebile ku socdin baa waryaar maxaa meesha dikeen waxa gebile baan tegaynaa maxaa ka doonaysaan aadan cabdulle cismaan baa imanaya la yidhi waan nidhi yaa markaasuu na soo qaaday gebile agagaarkeeduna keenay halkaasna aanu ka baxayaaye goobtaa gebile annagoo daalan ayaan meesha nidhi waxaan nidhi madaxweynihii baan doonaynaa baan nidhi I think 35 meelaan nahay halkaa beer yaroo meel waliba beerta xorriyadda leedahay ayaa la noogu tilmaamay in qado loogu samaynayo jagac baan meesha ku nidhi yaa de waxaan moodaa inaan arki karno mogta. markaasaa xayndaab baa ku wareegsan madaxweynaha oo dee lama soo geli karo waa lana soo celiyey sheekada intaasaan horta ka xasuusanay si aan u noqonnay iyo habkii markii dambe habqanka yagii ma xasuusni inaan soo noqonno ma garanaya. laakiin caatifada markaa taallay waxay mid aad u weyn. caruur yaryar oo la yidhi aadan cabdulle cismaan baa ka imanaya muqdisho halkuu imanaya gebile jagac soo tidhi waxaad garan kartaa markaa sida la iskugu xidhnaa iyo wanaagga jiray iyo dadku siduu waddanka xiisahu u qabay ayuunbay runtii tilmaamaysaa. professor maxamuud macalin cali tuur yare ninka loo yaqaano oo lay wada yaqaano jaamacaddii ummadda kulliyadda sharciga madax ka ahaan jiray. waxa uu iga warramay in ninkaasi dhaqanka uu lahaa la yaab kale ay ka mid ahayd isagoo madaxweyne ah in carruurtiisu markay iskuulka aadayaan uusan u ogolaan jirin gaari gaara in lagu qaado oo uu dhihi jira waa inay raacaan bulshada, waa inay baska ay dadweynuhu raacayaan ay raacaan, waa inay sida ay bulshada iyaga lamidka ah iyo ardayda lamidka ah sida ay u nool yihiin inay u noolaadaan. waxaa kaloo igu daray in uu yidhi markii waddanka burburka uu dareemo inuu burburayo inuu ku yidhi waxaad ku soo barateen canshuurtii qaranka Soomaaliyeed ayaad wax ku soo barateen waddanka ma bixi kartaan, waa in aqoontiina aad wax ku tartaan. mudane aadan cabdulle cismaan markuu xilka ka degay wuxuu ku sii nagaaday dalkiisa hooyo ee Soomaaliya isagoona nin Talyaani ah ka iibsaday beer ku taalay Mushani oo u dhow deegaanka Jannaale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, taasi oo u ahayd deegaankiisa rasmiga ah oo uu ku dhoolaa intii cimrigiisa ka dhimanayd. dad badan ayay cajab gelisay sida uu dalkiisa iyo dadkiisa u jecel yahay isagoona mararka qaar lagu arki jiray goobaha ay bulshadu isugu timaado ama ay ka adeegtaan isagoon wax ciidan ay la soconin una muujinaya dadka qadarin iyo garab raaricin isla markaasna aysan ka muuqanin ama u muujin jirin bulshadiisa isla weyni. waxyaalaha markaa la yaabka lahaa oo kaleeto aniga personally anoo aad u yar Sanema Central aanu nimi markaanu filimkiisa nirigala baa waxa naga hor yimay madaxweynihii aadan cabdulle cismaan allah u naxariistay oo sii baxaya. waa daba galay marka keligiis laba nin baa marka xareeraha meel fog kala socdo aanu qaadanayna yihiin boliis ilaala ah. waa keligiis cimaamad yar baa u saaran macawis. marka ilaa tiyaatarkan daba galay markuu tiyaatarka halka aan garanay madaxtooyadu u sii socdo baa halka dib u soo noqonay. allah u naxariistay madaxweyne aadan cabdulle cismaan waxa uu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya taariikhdu markay ahayd 8 Juun sanadkii 2007. marka hadee anigu waa shaqeeyay intii sida waa shaqeeyay ilaahay waa iga sareeyay laakiin wax eemo gooni aan lahayn oo aan ahayn yani Soomaali inay isku mid noqoto
ku dadaal oo contribuire waxaan ahayn ma jirin haddaba maxaa laga baran karaa madaxweynihii ugu horreeyey dalkeena Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan madaxda ugu sarreysay dalka ee hadda xilka haysa maxay ka aaminsan yihiin mudane Aadan Cabdulle Cismaan oo hortood xilkaas soo qabtay sida Aadan Cabdulle Cismaan Ilaahay ha u naxariisto oo xafidayana oo lahaa rajul dawli buu ahaa inaynu dad dawliya noqono waxaan xusuustay Aadan Cabdulle iska lugaynayo meesha hadda la yiraahdo dowladda gobolka shanaamo ku agtaalo shanaama waxaa la dhihi jiray shanaama kafee national shanaama xamar keligiis isagoo iska socda ayuu meesha isaga iyo prime ministerka waxa kulli si caadi ah ayay u socon jireen marka allah u naxariisto tusaale waxa weeye Soomaalidoodii inay tusaale ka qaadato baahan mabaadi'diisu waxay ahayd in dimuqraasi lagu dhaqmo oo yani wax walba cadaalad iyo dimuqraasi in lagu dhaqmo oo weliba minoritiska la taxgeliyo aadan wuxuu ka mid ahaa kuwa mudan in lagu daydo maartay ayuu ka mid ahaa oo wax badan nolosha iyo siyaasadda iyo dimuqraasiyadda iyo wada noolaanshaha iyo wax isu quuridda iyo wadan jaceylka iyo laga baran karay iyo ahaa marka waxaan dhihi karaa waa haliyey in la xuso lagu daydo la fahmo dabeecadiisa iyo siduu usoo dhaqday iyo wuxuu galay wuxuu gudabay in maanta lagu daran qabaa manaahijta iskoolka xilligii hore marka laga hadlayo runtii waxaan dhihi karaa wuxuu u baahan yahay buugaag in laga qoro wax badan dadkii la soo joogay oo dad badan weli ka nool yihiin ayaa u baahan in laga qabto dhaxal ku saabsan noloshii Aadan Cabdulle Cismaan marka laga hadlayo madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan maxay ka baran karaan madaxda maanta iyo madaxda berrito runtii waxaan isleeyahay wax badan baa laga baran karaa oo weliba ay u baahan yihiin jaamacadaha weliba kulliyadaha siyaasaddu inay daraaseeyaan hogaamintiisii habdhaqankiisii iyo habnololeedkiisiiba hogaamintiisii waxaa ka mid ahaa dad iskuwadka dulqaadka nolosha sida uu dadka tanaasulka xoolaha ummadda u ilaaliyo oo uu nacbaa musuqmaasuqa qabyaaladda oo uu ahaa qofka ugu fogay qabiilka nacab ee ah dadku Soomaaliyeed isugu mid yihiin waxaa laga baran karaa hogaamin toolmoon oo toosan oo turxaan la waxaa kaloo laga baran karaa habdhaqanka madaxweyne laga rabo qoyskiisa waxaa laga baran karaa caruurtiisa sida loo u koriyey waxaa laga baran karaa simplicity-ga inuu ahaa qof tadaawuc badan oo isdhulrig badan oo aan dhibaato badnayn oon dadka dhibaatayn oo aan afkiisa iyo adinkiisaba laga nabad galo waxa ugu weyne laga baran karaa aan isleeyahay waa dimuqraadiyadda iyo sida uu jeclaa xorriyadda xilligiisii aan weligii aan qof la xidhin aan lagu xasuusan qof Soomaaliyeed oo la xidhay siduu u ilaalin jiray sharciga iyo dastuurka iyo ku dhaqanka dastuurka ta ugu weyn aan isleeyahay madaxda mustaqbalka iyo madaxda maanta joogta iyo madaxda shalayba ay ka baran karaan waxa weeye qofku soo qabtay xilka madaxweynaha inuu tusaale noqdo tusaale u noqdo nabadda tusaale u noqdo dadwadka tusaale u noqdo Soomaalinimada tusaale aabba noqdo aabbaha qaranka noqdo ayaa intii uu xilka hayay iyo intii dambe ee uu ahaa madaxweynihii hore ee uu janaale deganaaba wuxuu ahaa aabbaha ummadda Soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxaas oo dhan baa laga baran karaa mid waxa weeye shakhsigiisa aabbanimada qoyska ninkaas yaa kaga dayasho wuxuu lahaa tusaale uu hoose aabba wanaagsan ilmihiisa tarbiyad wanaagsan siiyey maanta ku jaamacaddan banaadir la yidhaha cabdulqaadir baa waxaa nala joogay cismaan cabdulqaadir oo isaguna itaaliya waxaa iskula baranayaa jiray maxamed gabadhiisa oo caaliye la yidhaahdo waxay joogtaa toronto waa dentist dad wuxuu soo saaray ilmo waddankoodana wax u qabta mujtamac ay tagaana ka soo dhalaalahay waxaa lagu xasuustaa oo soo maray marxaladahaas soo maray inuu ahaa runtii nin ku adag afartaas mabaadii iyo shanta mabaadii ay aaminsanaayeen halgankii iyo howlwadeenadii iyo platformkii Israel oo ahaa midnimada wadaniyadda dowlad wanaagga sharafka Soomaaliya qabyaalad in laga fogaado waxaasoo idil runtii wuu ku sifoobay inaan ku faani karno inuu ahaa madaxweynihii Afrika soo maray oo ugu horeeyay oo ku yimid si dimuqraadiyad ah kuna tegay ama xukunka ku wareejiyay si dimuqraadiyad ah waana wax loo baahan yahay hadda naftigeeda inaan ka baranno oo aan uga dayanno
iyo mabaadi'dii SYL-ka naftigooda ay haysteen oo ahayd haddaan u baahannahay midnimo Soomaaliyeed, haddaan u baahannahay oo baahi weyn u qabnaa, haddaan u baahannahay wadaniyad bacdamaa muddo dheer ummadda Soomaaliyeed qabiil iyo qabyaalad loo qaybiyey in laga fogaado oo wadaniyadda la xoojiyo. haddaa la rabaa in aan dowlad wanaag ka shaqeyno oo musuqmaasuqa dowlad waa ku duntaaye waana soo aragnay khibraddeedana waa leenahay aan ka fogaano iyo sharafka Soomaaliyeed inaan aanan gorgortan laga gelin iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed gorgortan aan laga gelin. runtii wuxuu ahaa tusaale aadan cabdulla cusmaan tusaale u ahaa dadkana inaan xasuusino oo maskaxdooda runtii aysan ka bixin. haddii la arko madaxweynahaas mas-uulkiisana macnaheedu waxay tahay halgankii lasoo maray SYL lasoo martay inaan xasuusnaano, dimuqraadiyaddana inaan xoojinno oo aan adkeenno inaan xasuusnaano. marka runtii waa tusaale wax laga baran karo. allah u naxariisto madaxweynaheena hore aadan cabdulla cusmaan, jannadiisii iyo naxariistiisina allah siiyo. qabiilka dhaafno deregna aynu gaarno, inaan qabiilka dhaafno deregna aynu gaarno, cudurka aan dhammayno shanta in laysdhex keeno dhashoodu wada cayaarto badhbadhaadhnay bogiyo wadano liftaynu boganay ku badhbadhaadhnay